madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda ka soo baxay teendhada koobaad ee loogu talagalay dhinaca borotokoolka waxaana sidoo kale la socda madaxa shirkadda DB Well Ahmed bin Sulaym iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ee waddanka Ethiopia Ahmed Shide si rasmi ah ayaan munaasabada hadda u bilaabmi doontaa madaxweyne Biixi iyo mas'uuliyiinta kale ayaa hadda soo galay on the count of Thank you very much. Waxa iyadana sidoo kale farxad inoo ah in containerkii ugu horeeyay waa containerka calaamadu ay ku taalo ka yimaada dalka Imaaraadka ka soo degay dekada Berbera si toosana u tagaya Addis Ababa Ethiopia. munaasabadan ballaaran oo goobtan ku soo gabagabowday ayaa waxaa si rasmi ah uga hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wasiirka gaadiidka ee waddanka Ethiopia Dagmawit Moges iyo wasiirka maaliyadda ee waddanka Ethiopia Ahmed Shide waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Dr. Saad Ali Shide wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland iyo sidoo kale Ahmed bin Sulaym maareeyaha guud ee shirkadda DB Well iyo maareeyaha dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi mudane madaxweyne maanta dekadu waxay u diyaarsantahay inay qaabisho ama rasiif karayso maraakiibta ugu waaweyn dunida insha Allah billahi ta'ala waxaan jecel lahay marka ay dhameystiranto dekadu in wadadina ay iyaduna dhameystiranto wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shide ayaa waxa uu ka sheekay taariikhdii uu soo maray mashruucani waxaana uu sheegay in shirkadda DB Well ay ahay shirkaddii ugu dambeysay ee soo codsata inay markaasi tartan u gasho maalgelinta dekada Berbera iyadoo markaasi qarka loo saarnaa in lagu dhawaaqo shirkadii ku guuleysan lahaa oo markaasi gabagabada ay soo gaareen shirkadda Bolore iyo sidoo kale shirkadda MSC hase yeeshee si dhaqso ah oo degdeg ah ugu soo biirtay DB Well oo markaasi si gaar ah ay u tixgeliyeen maadaama awood ahaan ay ka xoog badan shirkadaha kale fursado dheeraadana ay ku jireen maalgashigeeda We carefully vetted their proposals and shortlisted finally Bolore and MSC. We plan to make our final decision on the winner on the 5th of May 2016. But then a miraculous thing happened. Finally, we're here today not just to celebrate the conclusion of the first phase of Berbera Port Extension project, but to inaugurate a regional and international corridor that will serve all the people and nations of the Horn of Africa, particularly Ethiopia, our neighbor. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee waddanka Ethiopia Ahmed Shide oo sheegay in Ethiopia ay ku faraxsan tahay kaabahan dhaqaale ee ku soo kordhay geeska Afrika ee awoodaha dheeraadka loo yeelay waddanka Berbera waxaana uu sheegay in taasi ay mustaqbalka keeni doonto in deegaanka Soomaalida Oromada iyo Canfartu ay si aad isugu xidhmi doonaan Somaliland marka waa investment taariikhi ah oo maalgashi badan oo ka baxay oo annaguna dal ahaan qayb aan ka nahay marka hogaaminta madaxweynaha iyo dhammaan wasiirada iyo gudoomiyaha chairmanka DP Well dhammaan ay ku mahadsan yihiin gaar ahaan shacabka Ethiopia guud ahaanna deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromada iyo Canfarta xaggan xigtana ka faa'iideysi ballaaran bay ka yeelan doonaan mashruucan horumarinta Soomaaliland qayb weyn buu ka qaadanayaa in la isku taageero u baahan dhammaan regionka oo dhan laga taageero aad iyo aad mahadsantiin maareeyaha guud ee shirkadda DB Well Ahmed bin Sulaym ayaa waxa uu sheegay in ay aad iyo aad ugu rajo weyn yihiin in dekada Berbera ay aad isugu xidhmi doonaan dekada Jabal Ali ee waddanka Imaaraadka Carabta oo uu sheegay hadda inay wajahayso ciriiri dhanka baaxadda ah balse dekada Berbera ay tahay dekad aad u weyn oo haysata baaxad ay ku faafi karto taasina ay rajo gelinayso Alongside expanding the port, we have increased its overall operational efficiency, productivity to meet the growing demand, reduced vessel waiting from several days to just a few hours. Our customers in Jabal Ali can expand here, knowing that they do the same. I have a problem in Jabal Ali, I have no space. We can all be very proud of what we have achieved together. sidoo kale waxa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxaana uu si gaar ah u amaanay Somaliland waxa kaliya oo xusaya xiriirka ka dhaxeeya deegaanka Soomaalida gaar ahaan iyo jamhuuriyadda Somaliland oo maaragtay gaar ahaan dalka Ethiopia oo dhan waa dal weyn laakiin annaga deegaanka Soomaaliya ahaan waxa wax ku leenahay oo gaar noo ah oo noo soo kordhay weeyaan
inaan aragno idinku ka soo qabtay dhibaatooyinkii hore idiin soo gaadhay inaan aragno idinka oo waxyaalo badan oo Soomaalida jinsi ahaan lagu dhibaateeyo ama lagu xuquuqo oo ay ka mid yihiin colaadaha iyo dagaalka iyo dawlad la'aanta iyo wax oo dhan inaad ka duwan tihiin oo aad muujisaan Soomaalidu inay yihiin dad xadaarad leh ismaamuli kara dimuqraadiya runtii arrin aad iyo aad qalbiganaga mar walba farxad u gelinaysa tahay inaan fagaaraha idinka sheegayaan jecelahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isna goobta ka hadlay waxaana uu sheegay inay Soomaaliland mas'uuliyad dheeraad ah ka saaran tahay inay markaasi ka tarjumaan maalgashigaasi inta uu leeyahay inaga reer Soomaaliland maanta waa inoo farxad oo waxaan furay dekadii waxaase ayna furay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekadaha ee u baahan in dekada isticmaalaan ee ugu soo horeeyo dowladda deegaanka Soomaaliyeed iyo Ethiopia oo dhan iyo inta ka shaqeysa xilkaasi waxay looga baahan yahay mas'uuliyad culus oo ugu horeysa soo dhaweyn ilbaxnimo shaqo fiican waayo noloshu waa tartan dekeduhuna way tartamayaan dekeda waxa qulay hirgelaysaa marka la helo deked waqtiga ugu yar kaga dejin karta marabka ee geyn karta halka looga baahaa waa ta koowaad mirka qaaliya marka dekeda laga shaqeeyo waxa loo baahan yahay dad laga macaamili karo oo ilbaxa oo furfuran oo qofka yimaaday baaxmuujka uu ku nasto ee aanu ku deeqaban laga doonay waxa laga doonayaa ammaan gaariga halka ka baxay dhexda maraya haddii uu ku banjaro ama meel istaago alaabtiisa iyo dadkiisu inay ammaan ahaadaan hadduu sharci shay yaalo oo la yiraahdo waa dhulkii ammaanka ahaa kartida ahaa ilbaxa ahaa ee wax laga iibsan karayay markaasaan tartan karaa xilkaas ay laga leeyahay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dadkii sida weyn uga hawlgalay mashruucani oo ay ku jiraan danjiraha Soomaaliland waddanka Imaaraadka Carabta wasiirka maaliyadda barasaabka gobolka Saaxil meerka magaalada Berbera iyo maareeyaha dekedaha Soomaaliland Cabdishakuur Day Maxamed MMTV Berbera